dhamaystay dalka Eritrea ciidankaasi tababarkoodu waxay dhamaysteen sanadkii la soo dhaafay dhexaadkiisii iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saamayso madaxweyne ciidankaas waa ku diyaar waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan marka ugu horeysa waxaan rajeynayaa ciidankaas inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga xoreeyaan ciidanka uga xoreeyaan argagixisada al-shabaab ciidanka dhismihiisa waa socdaa waxaan rajeynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka shabaab iyo argagixisada ay dalka ku hayaan waxaan kaloo aan kugu wareejiyey sida adigu aad ugu wareejisay 5 sano ka hor aan dib kugu wareejiyey in badqabka khayraadka dalka uu intact yahay sidii aan ugu imid aysan wax isbedel ah aysan ku dhicin arrinta badda murankeedii inay soo afjarantay ay soo dhamaatay sanadkii la soo dhaafay oo halkaas runtii aan ku guulaysanay waxaa intaas dheer hawadii dalka inaan soo celinay hantida ummadda Soomaaliyeed u dhaxaysa hadday tahay dhismo iyo hadday tahay dhulba innaba ha yaraatee sideedii inay tahay oo cid milkiyad aan ku wareejiyey in aysan jirin waxaan kaloo kugu wareejiyey sharcigii doorashooyinka waan ognahay waxaan soo marnay doorasho dadban oo aad iyo aad u dhib badan annagoo haysanna sharci dhammaystiran oo maybe laga yaabo in wax yar laga bedelo oo in dalku u guuro doorashada qof iyo codka ah ama doorashada toosan si ummadda Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ay fursad uga helaan si ay uga qayb qaataan dimuqraadiyadda dalkan arrinta Somaliland waxay ahayd qadiyadda Somaliland waxay ahayd iyo arrinta Somaliland wax soo jiitamayay oo madaxweynihii ka horeeyay aad ka dhaxashay adigana aan ka dhaxlay iyadana u baahan dhamaystirka midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaan kaloo aan kugu wareejiyey codsi aan u dirnay qaramada midoobay oo aan uga qayb galayno Security Council aan uga qayb galayno oo aan xareynay codsigaas 2018 doorashada aan u galayno 2024 si aan maxaan ku raadaan u fariisano kursigaas 2025 taasna waxa weeye waa legacy ama dhaxal reeb aan uga tagay ummadda Soomaaliyeed maadaama aan laga joogo 51 sano ka hor sidaan xorriyad u qaadanay aan noqonnay xubin ka mid ah hal mar kaliya waxaa kaloo aan kugu daray qaabka ugu wanaagsan oo lagu soo afjari karo cunaqabateynta hubkan saaran ama arms embargo iyada nafteeda kugu jirta arrinta ID-da waa ka wada hadalnay oo dalkan hadduusan dadka aysan lahayn ID number aysan lahayn haddee waxa weeye security wax u dhimaysaa dhinac walbay dhibaato u tahay marka arrintaasna runtii meel fiican bay maraysaa oo waxaan rajeynayaa inaad dhammaystirto arrinta kale oo muhiimka ah oo aan kugu daray xogta aan ku siiyey faylashaan ku siiyey waxaa ka mid ah haddeen cafinta iyada naftigeeda oo adigu aad soo bilowday oo aad heshiiskaas 2016 adigu aad la gashay World Bank iyo IMF-ka annagana 4 marxalad aan ka soo gudbinay haddana ay harsan tahay marxaladii ugu dambeysay oo insha Allah hadday hawshan socoto waa hubaa inay soconayso aad wadayso dhamaystirkeeda uu yahay sanadka soo socda markaasna ay cafintii meesha ugu fiican ay tagayso oo dalka laga cafinayo deemaha nalagu leeyahay oo soo taxnayd ilaa maalintaan xorriyadda qaadanay arrimahaas oo dhan waa dhaxal reeb ama legacy aan iraahdo waxaan rajeynayaa insha Allah in maxaan ku raahday Ilaahay kuu fududeeyo shacabka Soomaaliyeed ama dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo 5 sano taageerada ay taageereen iyo sida dhow oo Soomaalinimada leh oo waqtinimada leh oo wadaniyada leh ay noola shaqeeyeen waxaan rabaa inaan la dardaarmo aan ku iraahdo inaad la shaqeysaan madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud aad la shaqeysaan doorashadii way dhamaatay hadda waxa la galayaa waqti shaqada uu hayo madaxweynahana wuxuu u qabanayaa ummadda Soomaaliyeed saas darteed inaan ku garab galno aan u midowno aan ku taageerno maxaa yeelay waxaan nahay dal ka soo kabanaya burbur aad u qoto dheer aad u faraweyn saas darteedna hal qof iyo laba qof waxba ma qaban karaan shacabka Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay garab ku siiyaan madaxweynuhu aniga ka ahaantayda waa ku garab taagnahay
waxaan kaa ballan qaadaya inaan garab kuu siiyo gacan kuu siiyo heer walbaba insha allahna waxaan kuu rajaynaynaa inuu ilaah kuu fududeeyo. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحونا سيدو الشيغي ما أنت مالين أو تاريخي أو باهن إن آدي لو حصل لو حسوس مدحونه ترتيبه ونظام أيو يوريجي حلكة دوكومنتياشا iyo mashaariicda faylasha waaweyn oo madaxweynuhu ka hadlo dhan waan la wareegay dabcan waa tartiib ayaan dib wada akhrin doonaa wada fiirin doonaa wixii macluumaad oo aan fahmi waayeen dabcan walaalkii waa joogaa dib aan ula noqon doonaa waa weydiin doonaa laakiin faylashaas oo dhan maanta waa ka qaaday madaxweynaha sida ciidamada amniga khaasatan waa run ciidamada Eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen waana wiilasheenii waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka u soo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn oo ay ku leeyihiin ay ka qaataan waa ciidan Soomaaliyeed dalka Soomaaliya iska leh qofna ma lahayn dal kalena ma laha taasi waa halkaas inaha kale oo dhanna deyn cafintu way soo socotay haddana way socotaa waqtiyada madaxweynuhu sheegay waa waqti aad iyo aad loo rajaynayo inay ku dhamaato kuna dhamaan karto ana ka shaqaynaynaa haddii aan leeyahay inay ku dhamaato wixii dan Soomaaliya oo dhan waxaana intaas kadib waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado madaxweynuhu waa mahadsan yahay waana oday Soomaaliyeed waana la joogaa meel kasta uu joogo ilaahay inankiisa waana la tashan doonaa waana muxuu ahaay iska warqabi doonaa haddii aan leeyahay xurmad weyn oo madaxweynenimo ayuu dalkan ku leeyahay madaxweynuhu dal ha joogo dibad ha joogo inuu xoogaal dalkan u noqdo wixii qadaayaad oo waaweyn oo jirana waayo aragnimo iyo xoogaalnimo dheer maadaama uu leeyahay waa wuxuu noqon doonaa qof lagala tashta arrimahaas haddii alla yidhaah sida uu madaxweynuhu u sheegay aniguna waa codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inaan halkaa ka taageeradiina idin weydiisanayaa kalsoonidiina buuxdaan idin weydiisanayaa sidaad horeba igu taageerteen madaxweynahana kalsoonidiisa uu iiga tegayo waa ku mahadsan yahay howlaa noo taalo howlaha waaweyn faylasha waaweyn oo madaxweynuhu ka hadlay oo dhan haddii aanay dadka Soomaaliyeed u wada guntanin howl hadda qof kaligiis iyo laba iyo lagu dhamaystirkeeda lagu qofku mas'uulka ah wax waa bilaabi karaa ra'yi waa curin karaa waa keeni karaa laakiin ra'yigaas inuu dhaqan galo oo waxtarkiisu ay ummadda aragto waxay u baahan tahay u wada istaagidda ummadda iyo garab istaagidda madaxda dhammaan in la garab istaago madaxweynaha kaliya maaha dawladda oo dhan qaybaheeda iyo laamaheeda kala duwan aad iyo aad ayaan mar kale ummadda Soomaaliyeed ugu mahad celinaya madaxweynaha noo aadan ugu mahad celinaya madaxweynaha Allah akbar ma santa ujeedadiisa ayaa laga rabaa aysuran idinkuma arkaysay shaqaha aadin aysuran idinkuma arkaysay qaranka iibso aysuran idinkuma arkaysay shaqaha aadin aysuran idinkuma arkaysay qaranka iibso min xilqaaday من حلقادي قادي Go.
maxamed cabdulaahi farmaajo labada madaxweyne wada jira ayaa hadda u socda goobta loogu talagalay inay ku qaataan salaan sharafta oo ay ku diyaarsan yihiin cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kooxda baanda muusiga ee militariga Soomaaliya waxaana halkan madaxweynaha si maqaam sare leh loogula wareejin doonaa markaas calanka jamhuuriyadda iyo sidoo kale howlaha kale ee loogu talagalay mas'uuliyiin kala duwan ayaa halkan ku sugan oo markaas ka tirsan hay'adaha kala duwan ee dawladda warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa inagala socotaan qaybaheeda kala duwan daawadayaal madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii hore ee dalka ayaa hadda goobta soo gaaray waxaa fagaaraha ama isteedka soo gaaray madaxweynihii hore ee dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana madaxweynihii hore ee dalka qaadanaya salaan sharaf oo ka qaadanaya cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka